السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما lagu jiraa maanta videoga kuma jiri gaari dad badanaa waxay dhaheen yahow markasoo video aad samaynaysa maxaa gaari ugu jirtaa maanta geedaan dhex taaganahay iyo meel oo dhismo gadaashiisa waa iska garanaysaa hawada iyo buuqeeda baabuurta gaarigu wuxuu ku fiican yahay markii oo aad video samaynaysid codka iyo wixii oo dhan aad maamuli kartaa macnaha waxaad iska xidhaysaa buuqa bannaanka dadka kula hadlaayo interruptionkii ama macnaha dadka kusoo dhexgelaya ama wax kusoo dhexgelayaan waxaasna iska ilaalin kartaa laakiin hadda inta waxaan taagana meel yara jid ahoo dhismo gadaashiisa waxay noqon kartaa qof ay soo agmari karo marka inaan ka leexdo waayo anooda meel yaroo waxaa waayo maasha allah geedo iyo xoogaa hoos leh maantana hawada aad u kulushahay waana windy sometimes codkayga inaad maqli weysaan laga yaabaa marka haddii aad ku jirtid fadlan codkayga hadduu fiican yahay haddii kale iisoo qor codkayga hadduu okay yahay okay waayo dhe insha allah si aan u ogaado 100% inuu nadiif yahay codka iisoo qor insha allah codkayga see weeye how's my voice I want to make sure inaa waxa aan insha allah in la share gareynaa inaa heshaan adinka oonan micnaha codkii aanan xumayn let me know if the sound is okay marka thank you marka ku bilaabana maanta 5 qaabood oo lacag uga sameyn karta internetka tanna ma ahan micnaha dad waxa jiro oo waxyaalo ku soo dirdiraayo ama link ku soo diraayo wax ku soo diraayo oo lacag si fudud adina kaaga sameeyaan rabo intii adiga aad sameyn lahayd lacag ka sameyn lahayd meesha marka dadaa maraayo lacag inta adiga ka sameyn lahayd wax iyo adiga lacag inay ka sameeyaan rabaa marka taas waxa waaye qalad waaye waxa la scam ama macnaha waa dadka la dhacaayo marka habka ugu horeeya number 1 waxa weeye inaad leedahay website inaad leedahay waxyaalo badan ka caawinaysa waxyaalo badan ku sameyn kartaa dadka soo diri kartaa qof hadii for example uu wax ka gadanayo website-kaas aad dhihi kartaa marka website inaad leedahay muhiim waaye waxa kale oo ku sameyn kartaa dadka isku keenin kartaa hadda for example Facebook website ay leeyihiin website-kooda dadka dhan way imaadaan maxay lacag ka sameeyaan xayisiinta adii xayisiinta ka sameyn kartaa website badan jiro oo Soomaalida leedahay oo dad isku imaadaan dadka isku imaatankooda lacag laga helaa for example hadda community weyn aad samayso xayisiina website-ka ku sameyn kartaa waaga hore waxaan arki jiray bahaladan la dhaho formska waxay ahaayeen qatar waaga hore marka inaad website leedahay waxay ka caawinaysaa inaad dadka soo jiidato inaad community aad samayso waxyaalahaas oo dhan hadda community samayso xayisiinaad u bandhigi kartaa xayisiintaas lacag ka sameynaysaa waxyaalo kale products u bandhigi kartaa waxa kale oo sameyn kartaa waxa jiro waxa la dhaho website hadda leedahay membership waxa la sameyn kartaa waxaan garanayaa dad waxay sameeyaan barnaamijyo ku saabsan kaba soo qaad wax bay offer gareynaan waxbarashay offer gareynaa wax bay siinayaan dadka waxay siinayaan membership ka sameynayaan hadda adduunka dhan wuxuu noqday membership maxaa laga wadaa website aad leedahay kaba soo qaad waxaa rabtaa dadka inaad dhahdo haddaa rabtaan inaad heshaan waxyaalaan qoraaya leedahay waxaan qoraa akhbaaraad ama reports aan qoraa haddaa rabto inaad bil kasto aad akhbaaraadkaas hesho sign up samee oo soo diiwaangeli marka ay soo diiwaangeliso bishiiba waxaa laga qaadaa $2 hadda waxaa sameeyay raggaan la dhaho Netflix maxay lacag ku sameeyaan dadka in ay membership ka samaystaan oo ay sign up ku sameeyaan iyo lacag ka sameeyaan marka $2 aad dhihi kartaa $10 aad dhihi kartaa adiga wixii qiimihii kula ekaado waxa sameynaysid yaa dhihi kartaa membershipka marka wuxuu ku fiican yahay wax joogto oo waxa waaye waqti dheer ku haynayo oo ay dadka as long as dadka ay ku jiraan lacagta way ku soconaysaa marka membershipkana muhiim waaye taas waxay ku qasbaysaa at least website inaad leedahay waxaa sameyn kartaa waxyaalaha la dhaho affiliate programming affiliate maxaa laga wadaa affiliate waxaa laga wadaa hadda waxaa jira Amazon oo ku soo laaban doona hadhoodii Amazon waxay sameeyaan account ka samaysan kartaa account markaa ka samaysato waxaa samaysanaysaa you become affiliate noqonaysaa affiliate waxa weeye waa qof Amazon u xayisiinaya waxay hayso kadibna qofkii ku xayisiisay hadduu alaabtaas gato asaga oo soo raacay linkiga aad siisay
adiga lacagaa ka helaysaa sorry about the buuqa bannaankaan joognaa maanta gaariga waa ka soo baxna maanta affiliate-kaas marka wuxuu ku fiican yahay website badanaa ku samayn kartaa aniga for example hadda affiliate waxaan ku sameeyaa web hosting iyo domainka dadka markay gataan for example aniga waxaan sameeyaa waxaan leeyahay company sah solutions la dhaho website-yadaan sameynaa marka qofkii haddii uu website loo sameynayo annagaa qofkii soo jiidayno u geynayno company uu hosting ka qaato hostingka waxaa website-kii wixii dadka haynayay companiya waaweynaa gada marka GoDaddy ka mid yihiin companiyo kale companiyadaas waxay leeyihiin programyo affiliate la dhaho oo haddii aad qof u keento oo qofkaas uu ka gato wax aad adiga ku leedahay wax ay ku siinayaan adii macnaa qofka kuma charge garaynayaan more macnaa qofka wax badan kuma charge garaynayaan laakiin ayagaa waxay ku leeyihiin thank you waay affiliate-ka lagu leeyahay waa mahadsan tahay xigtaan yarta how camal waayo marka affiliate-kana waa barnaamij jiro taasna waxay ka caawinaysaa haddaa website leedahay affiliate inaad samaysan karto waxyaalaha la dhaho ama haysiimaha samaysan karto intaasaa ugu soo gudbaynaa dib aan ugu soo laabanaynaa Amazon actually before intaana ka bixin number 1 oo ahayd inaad website leedahay waxaad samayn kartaa e-commerce wax la dhaho waa maxay e-commerce waxaa weeye waxaad lahaanaysaa for example business aa leedahay kabsoo qaad ganacsi baa leedahay ganacsigaas waxaa rabtaa inaad ka dhigto online inaad internetka soo gelisaa rabtaa sidee uga dhigi kartaa e-commerce waxa la dhahaa jira marka e-commerce-ga waa ganacsiga online-ka alaabtaadii waxaad gelinaysaa website-kaada waxaa jira Shopify company la dhaho ayagana kaa caawinaya alaabtaas qofka asaga website gooni uu samaysan karaa Shopify lacag ay ku charge garaynayaan waxaa kaloo samaysan kartaa alaabtaada waxaa gelin kartaa Amazon laftirkeeda taasna waan ka hadli doonaa Amazon oo dhan hal mar usoo laaban doonaa hal yaro bakeela meesha maraay you guys want to see bakeela yariis waa and I think ganacsi inuu sameeyo raa umaleynaa bakeelaan maanta okay so number 1 that's number 1 number 2 waxaa weeye oo habka aad lacagta u samayn kartid online uga samayn kartid lacag number 2 waxaa weeye YouTube haddii aad YouTube leedahay waxaa samayn kartaa videos oo dadka ay daawanayaan gacanta bidaasho bismillah maanta igu horeyso anigoo keligay meel gacan la taagay YouTube waxaad samaynaysaa account YouTube aad samaysanaysaa accountkaas videoyaala soo gelinaysaa marka videoga soo geliso waxaad samaynaysaa xayisiinaad dul saaraysaa videoga marka kaba soo qaad waxaa daawatay 1,000 qof aad daawatay 1,000 qof oo daawadaba $1 lagu siinayaa marka badanaa saas waaye laakiin it's not that simple macnaa saas uma fududo xogaa waxaa laga yaabaa 1,000 qof oo daawado in lagu siiyo 75 cents in lagu siiyaa laga yaabaa 20 cents wax noocaase adiga ku jirtaa sida aad macnaha waxaad keenaysay meesha ku xiran tahay YouTube in laga hadlo video dhan ay u baahan tahay habka YouTube ay lacag looga sameeyo video gooni u baahan tahay laakiin waxaa ku samayn kartaa xayisiinta the more people macnaha dad badan haddii videoga daawadaan lacag badanaa samaynaysaa dad yar haddii daawadaan lacag yaraa samaynaysaa macnaha dad yar haddii daawadaan lacag yaraa samaynay dad badan haddii daawadaan lacag badanaa samaynaysaa marka adiga kugu xiran tahay inaad macnaha videogaad xayisiiso meelaha geyso aad dadka u sheegto inay daawadaan marka taas waa taas aniga for example camal YouTube waan leeyahay iskaana windy dabeela imaaday which is good because waa kuleel maanta hawada aniga for example YouTube waan leeyahay channelkayga for example dad badan ma daawadaan laakiin xoogaha waxaan leeyahay about few thousand subscribers waxay dhahaan dad rabo inay daawadaan videoyaasheeda marka badanaa waxaan helaa dhowr boqol oo adiga views videogii waxaan sameeyaa dhowrkaas boqol wax yar aad ka samayn kartaa marka kunkii kaba soo qaad kunkii qof oo daawado waxay kunkii qof oo daawado $1 ka helaysaa marka waa garan kartaa inta laga helaayo YouTube-ka aad u yar tahay laakiin haddii aad videoyaashaada ay leeyihiin thousands and thousands of views haddii leeyihiin lacag waa ka samayn kartaa marka adiga kugu xiran tahay dadaalkaada iyo ku xiran tahay dadka qaarkoodna waxay dhahaan xaysiimaha laftirkooda yaa diiniyan su'aal ku jirtaa maxaa yeelay videogaada hadduu diin ku saabsan yahay kaba soo qaad wuxuu ku saabsan yahay muxaadaro waay videogaada muxaadaradaas haddii ka waran lagu xayisiiyo kaniisad haddii lagu xayisiiyo lacagtaas ma qaadan kartaa su'aalaha ku jiro taasna waa dhinaca kale waa dhinaca diiniyan marka YouTube-ka ayada laftirkeeda lacaga laga sameeyaa marka that's number 2 number 3 intaan u gudbin number 3 waxaa weeye
Amazon aan ka hadlaya hadayto aan ku soo laabtay number 3 waa Amazon habka ugu sameyn karta lacag waxa weeye dhowr nooca ugu sameyn karta Amazon habab badan number 1 waxa waaye inaad the easiest way book inaad qorto that's the easiest way one of the easiest ways habab kale badan ayaa jiro book inaad qorto book hadda qorto Amazon geliso oo dadka dhahda gata waa la gadanayaa adiga lacag yar ka sameyn kartaa adiga kugu xiranta buuga ma waqti badan aad gelisay ma qoraalkiis aad ma u fiican yahay ma book la jecel yahay ma book la xiiseynaya waxyaalahaas oo dhan uu ku xiran yahay adiga si u xayisiiso laakiin book hadda samaysa Amazon lacag waa ka sameyn kartaa waxa kale oo sameyn kartaa alaab ku gadi kartaa Amazon waxa rabto anything aad ku gadi kartaa as long as aynan ahayn wax branded maxaa laga wadaa alaab company uu leeyahay sida Nike camal kabaha Nike kuma gadi karta Amazon way ka soo horjeedaan waxyaalo kale waxa jiro ay adagta inaad ku gado for example wax kasta oo qofka jirkiisa galo sida daawooyinka vitamins waxyaalahaas waa adagtahay in Amazon lagu gado maxaa yeelay sharciga u baahan tahay ayay ku siinayaan waxa kale u baahan tahay government regulationka dawladda Mareykanka hadda Mareykanka joogtid sharciyadeeda ina soo marta u baahan tahay FDA waxyaalo noocaas marka laakiin alaab caadi hadda gadaysid waa ku gadi kartaa oo qofna lahayn waxa kale oo la sameeyaa Amazon hab kale oo waxa jiro lacag lagu sameeyo Amazon FBA waxa la jiro dadka badana ay galeen hadeertaan Amazon FBA waxa laga wadaa Amazon FBA waa business aad alaab soo gadanaysid Amazon u dhiibaysaa Amazon waxa leedahay adiga shaqo faraha masaaraysid marka Amazon FBA kaas waaye alaabta dadka China ka soo gataan Amazon loo dhiibaa Amazon baqaarkooda ku haynayo kadibna Amazon gadgada alaabti adigana dhexda ka baxaysa adiga waxa sameynaysaa oo bas China la xiriiraysaa oo warshada China ku taalo kadib waxa leedahay alaabta Amazon u soo dira Amazon asaas ku gadayso marka taasna waa hab qaab lagu sameeyo lacag oo Amazon FBA marka that Amazon saas lacag lagu sameeyaa number 4 oo habka kale oo lacagta lagu sameeyo waxa weeye inaad sameyso waxa la online course macnaha waxaan ka hadlaynaa hababka lacagaha loogu sameeyo online-ka computerkaada ama website-ka ama social media waxyaalahaas waxaad sameyn kartaa waxa la dhaho online courses waa maxay website waxaa jiro la dhaho Udemy waxa waaye waa website laga daawado courseska waxbarashada marka haddaa wax taqaanid ka soo qaad wa calaykum assalaam haddaa wax taqaanid waxay noqotaa ha ahaato ilaaha may ahaato maaldood waxa maqlay story naag baa waxay taqaanay sida loo sameeyo special type of pancake pancake nooc oo I don't know wixii ahaa laakiin pancake waxa waaye oo unique oo dadka kala sameeynin pancake yar waaye oo haddaa xogaha if you try a little bit more waa sameyn kartaa naag hadii pancake samaysay sidii u samaysay waxay gelisay Udemy website-ka Udemy la dhihi gelisay ayda video ka duubayso thousands oo dad ka gatay course-geeda kumanaan dad ka gatay wax wixii lala yaabay noqotay marka Udemy hadda geliso waxyaalaha ama website kale badan ay jiro koox jiro loo teachable website cusub ay jiro loo teachable.com waa sida Udemy waaye waxa duubaysa course-gaas meesha gelinaysa kadibna dadku way gadanayaan adiga lacag ka helaysa Udemy-na wax bay ka goosanayaan marka waa win-win waaye in a way because Udemy way ku xayisiin karaan course-gaada marka online course qasama ina Udemy leedahay website gooni aad samaysan kartaa hadda for example aniga waxaan sameeyaa courses free aan sameeyaa aniga lacag kama sameeyo courses free aan sameeyaa oo la xiriira technology-ga waxaa jira group la dhaho Sahal Solutions Courses haddaa raadiso waa group xiran waaye groupkaas soo gali kartaa courses la xiriira kombiyuutarada iyo web design-ka graphic design-ka yaan ku sameynaa marka adiga meel gooni ah samaysan kartaa kadibna dadka charge gareyn kartaa aniga ma charge gareynayo dadka hadda dadka waa charge gareyn kartaa waxa leedahay $2 $20 $30 waxa rabto qofka intuu rabo ha ku charge gareeyo laakiin as long as dadka wax siinaysid lacag waa ka sameyn kartaa you could make money from online courses you could have your own website or you could use Udemy marka that's number 4 number 5 waxa weeye waxbarashadaadii ku xiran tahay maxaa taqaanaa
هذا for example waxaan usoo qaadanayaa consultingka iyo waxaan usoo qaadanayaa dadka sameeyo micnaha la talinta consulting waa la talin advisoryga dadaa waxay sameeyaan lacag waxay online ka sameeyaan iskuuli waxay u aadeen consulting marketing consulting iyo waxyaalo kale consulting waa la talin waaye online-kii waxay gelinayaan profile-kooda waxay samaysanayaan LinkedIn website la dhaho website LinkedIn la dhahay account ka samaysanayaan they create a professional profile samaysanayaan kadib waxay leeyihiin waxaan nahay consultant meelo website waxaa jira marka la geliyo magacaada oo dhahaysid ila soo xiriiriya qof kasta u baahan consultant meelo kale isku xayisiin kartaa you market yourself macnaha waa isxayisiinaysaa kadib dadaa kula soo xiriiraayo sorry about that there's diyaarada meesha marayso kadib dadaa kula soo xiriiraayo oo rabo consultant saasaan lacag loogu samayn karaa dadaa waxay sameeyaan therapy-ga website waxaa jiro therapy something like that Allah therapy wuxuu list gareeyay ama ku jiro qof kasta oo therapy sameeya hadda magaaladaada haddaad raadiso Google haddaad ka raadiso therapist qof oo therapist sameynaya macnaha therapy-ga waxaa waaye dadka caawiyo dadka xoogaha wax ku furan yihiin buuq ku furan yihiin haddii waxa buuq kugu furan yihiin ama awalwalsan tahay ama depression stress waxyaalahaas kugu dhaca waxaa la xiriiraysaa qof micnaha waxyaalahaas kaa caawiyo marka haddaad raadiso website-kaas waxaa arkaysaa qof kastoo meesha ku jiro telefonkiisaa ku jiro dadkaana waa dad professionals waa iskuul ay uga soo baxeen waxaan marka adiga haddaa iskuul uga soo baxday you could put your laftirkaada sawirkaada gelin kartaa meesha magacaada gelin kartaa Soomaali haddaad tahay kaba soo qaad hadda waxaan arkaa dad raadinayo qof Soomaali oo therapist marka waa garan kartaa waa loo baahan yahay so you could put yourself out there and you could make money so those are the 5 ways uu qofka u sameyn kara lacag insha Allah hoos waxaa ku qori kartaan hababka kale oo qofka lacag u sameyn karo adiga haddaa lacag ka sameynaysid hab oo sorry about that diyaarada meesha maraayaranoo meesha ka imaadeen adiga haddaa online lacag ka sameyso dadka waa u sheegi kartaa micnaha waxaa isticmaasho waa benefit dadka kale micnaha anfac nala share gare insha Allah intaas oga baxaya waa mahadsantiin guys aad baa mahadsantiin insha Allah haddii ay wax kale su'aalaha haddaa qabtaan ama waxyaalo kale jiraan ama wax aan si dhaqso u dhahay waa message ay igu qori kartaan meesha waa ila soo xiriiri kartaan haddaa u baahan tihiin qof hadduu u baahan yahay web design iyo graphic design wax la xiriiro company sales solutions sameeyo oo company-ga naga sales solutions.com aad tegaysaa wixii graphic design business card brochure waxyaalo noocaas aan sameynaa marka insha Allah I'll see you guys next time 5 ways 5 tips assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh